hogaamiyaha daacishta Soomaaliya Cabduqaadir Muumin ayaa la aaminsan yahay inuu si hoose loogu magacaabay hogaamiyaha guud ee daacishta ka howlgasha dalalka Suuriya, Ciraaq iyo Soomaaliya. warbixin ay soo saartay kooxda kormeerka cunaqabateynta ee qaramada midoobay ee ku saleysan xog sirdoon oo la helay dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay ayaa sheegtay inay jirto hubanti sii kordhaysa oo muujinaysa in hogaamiyaha daacish uu yahay Cabduqaadir Muumin sidoo kalena madax ka ah laanta kooxda ee Soomaaliya ka howlgasha. marnaba shakil ma gelin wararka ku aadan in Cabduqaadir Muumin oo haysta dhalashada dalka Ingiriiska isla markaana ka soo jeeda Puntland uu yahay hogaamiyaha qarsoon ee daacishta caalamka ka howlgasha. warkan ayaa u muuqda mid sii xoogeysanay iyadoo dalal badan oo xubnaha ka ah qaramada midoobay isku raaceen in daacish ay la jaan qaadayso xaaladda dhabta ee ka jirta dalalka Ciraaq iyo Suuriya oo isbedelo sameeyay, taasi oo ka dhigaysa inay tahay in saraakiisha muhiimka ah u rarto gobolo kale. tan iyo dilkii hogaamiyaha daacish Abu Bakr al-Baghdadi sanadkii 2019 iyo ninkii lagu bedelay oo la dilay sanadkii 2022 kooxda waxay isku dayday in ay qariso aqoonsiga hogaamiyaasheeda iyadoo yareynaysa muuqaaladooda xiliyada la magacaabo. Abu Xafsa al-Hashimi al-Qurayshi ayaa la aaminsan yahay inuu ahaa hogaamiyihii ugu dambeeyay ee daacish ee la magacaabay. warar soo baxay ayaa tilmaamay in Abu Xafsa al-Hashimi al-Qurayshi inuusan ahayn magaca saxda ah uuna yahay Cabduqaadir Muumin oo magaca bedeshtay uuna ka badbaaday laba weerar oo Mareykanka uu ka fuliyay gudaha Soomaaliya. warbixinta qaramada midoobay ee toddobaadkan ayaa sheegtay in tan iyo weerarkaas Cabduqaadir Muumin uu qaaday tilaabooyin lagu yareynayo in kooxda lagu soo jeediyo. warbixinta qaramada midoobay ee toddobaadkan ayaa sheegtay in tan iyo weerarkaas Muumin uu qaaday tilaabooyin lagu yareynayo in kooxda lagu soo jeediyo indhaha caalamka. daacishta Soomaaliya ayaa haatan wajahaysa weerar culus oo kaga yimaaday dhanka Puntland, waxayna Puntland ay sheegtay in dagaalka ay kula jirto daacish inuu gabagabo ku dhow yahay isla markaana ay ku sugan yihiin goobo fara ku tiris oo ku yaara buuraha Calimaskaad ee gobolka bari ee Puntland. warar dhawaan soo baxay ayaa tilmaamaya in diyaaradaha Mareykanka ee god uu ku jiro ay ku duqeeyeen hogaamiyaha daacishta Soomaaliya Cabduqaadir Muumin. Caynul Caafiya Hospital waxa uu ka daweynayaa xanuunka baabasiirka, ma dareemaysaa dhabar xanuun, caajis joogto ah, cuncun dhanka hoose, saxarado kugu adag iyo hamiyari dhanka gogosha. haddaba iskaga ciribtira xanuunka baabasiirka muddo ka yar 15 maalin adigoon wax qalliina lagugu samayn. wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada kala eberli halhal 37 37 83 ama eberli halhal 37 37 86 ama lambarka gaaban ee 3777